سلام كبعدي markii in muddo ah golaha abwaanada Soomaaliyeed eegayay marxaladda wadanka ka socota markaan aad ugu fiirsanay isqabqabsiga siyaasadeed ee dalkeena ka jira markaan in muddo ah ka fiirsanay xilliga ku habboon ee aan arrinkan ka hadli karno waxaan go'aansanay in bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo madaxda sharafta leh ee Soomaaliyeed aan gaarsiino warmurtiyeed golaha abwaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku cad go'aankooda insha Allah ta'ala warmurtiyeedkeena waxa akhrin doona afayeenka golaha abwaanada abwaan Ismaan Cabdullaahi Guure aan ka rajaynaynaa madaxda warkeena sida tooska ah ugu socdo oo dawlad iyo mucaarad iyo muxaafid intaba isugu jirta in ay u dhaganuglaadaan baaqyada ay soo saarayaan dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeed khaas ahaan kuwa abwaanada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaan isku leenahay waanada iyo warcelinta in taladu naga dhaxayso in wadanku naga dhaxeeyo in wax walba naga dhaxayaan inaad dareemi doontaan aad iyo aad u mahadsantihiin golaha abwaanada Soomaaliyeed oo ah afayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka Soomaaliyeed kuna aadanaa in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhisan tala wadaag iyo is-ogol haddaba golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa digniin golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu uga digayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan mas'uuliyiinta dawladda xisbiyada mucaaradka midowga musharaxiinta inay isku dayaan in ay ku kacaan ama ay adeegsadaan siyaasad howlhamag ah oo indhaheedu ku dhaygagsan yahay xukun maroorsi iyo kursi jacayl waxaan u sheegaynaa hogaamiyaasha dawladda iyo midowga musharaxiinta in aysan dalka kaligood rag u ahayn oo ay wadanka joogaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo cid kasta qaladkay gasho kula xisaabtami doona tala soo jeedin dawladda waxaan u soo jeedinaynaa in ay ka tanasusho fikradda ku dhisan xukun maroorsi waana inay madaxda dawladdu maanka ku hayaan sida ay wax u wadaan haddii ay sabab u noqoto dagaal wadanka ka dhaca inay mas'uuliyadda ayagu qaadi doonaan labo sidoo kale midowga musharaxiinta waa in ay ka digtoonaadaan in ay dalka ka ridaan dagaal la sokeeyo xasuustaanna burburkii laga dhaxlay iyo dhibaatadii dalkaanu ka soo maray dagaal la sokeeyo saddex sidoo kale waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya inaysan daawan xaaladda cakiran oo ay soo farageliyaan fiiro gaar ah abwaanada Soomaaliyeed maanta baaqoodu wuxuu ku salaysan yahay hadal laakiin haddii la dhagayso waayo berri wuxuu noqon doonaa suugaan mahadha reebta abwaanada Soomaaliyeed oo maanta halkan jooga warkoodu iyo fikradoodu wuxuu ku dhan yahay qoraalkii halkan uu ka akhriyay afayeenka golaha abwaaniinta tala oday iyo dardaaran oday baa soo jeedinaya wax badan baan u soo joogay bishan hadda aan ku jirno oo January ayaan anigu ka gelayaa 8 sano sidaa daraadeed dadka warkooda iyo waaya aragnimadoodu ay badan tahay baan ka mid ahay waxaan leeyahay aan ku dardaarmayaa kursiga nin ku fadhiyaana xoog kuma haysan karo nin u soo socdaana xoog kuma qabsan karo sidaa daraadeed ummadda ha loo turo haddii ummadda loo turo waayana dhibaata imaanaysa dhibaatada laga feejignaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abwaanintii iga horeeyay intay sheegeen waaye maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed maanta meel walbo ay dunida ka joogaan xaqba uma laha inay ka welwelaan ama is dagaala
amaalis ku dhacaa amaalis hirdiya amaalis dardara maxaa yeelay waa kasoo dhirgeen nafna waxay ka dhirigto ma u baahno tawfiiqda allahna waafajiyo amiin taladeena iyo tacabkeenana allah toosiyo tawfiiqa u baahannahay allah subxaanahu wa tacaala inuuna siiyo maxaa yeelay dadkeena dad wada dhashay waaye abtiyo eesimo waaye tol iyo xidid waaye seedi iyo sokeeya waaye wixii oo hadda ka hore soo dhaxmari inay mar labaad dhaxmaraan ay sheegaysaay wax u eg hataa inay dhaxmaraan xaq uma laha maanta dadkeena Soomaaliyeed maxay xaq u leeyihiin waxay xaq u leeyihiin inay iscafiyaan isku hooydaan isjeclaadaan iyagoo adeegsahayo wixii dhacay waa dhaceen wixii naga halaabay horas noogu halaabay wax kale asnaga halaabin wixii naga halaabi aan toosisano wixii naga jeexmi aan tolano wixii naga jabi aan kabano wixii naga baqi aan buuxsano waaye salaamu calaykum dalkan hooy dagaal yaan la gelin waan ka digayaaye qabiilkii dib yaan loogu celin laysku soo dilaye dimuqraadi waa inaan helaa doorashiya foode odaygii darad joogayow samir dulqaad yeelo midka maanta daadihiinayow yaan dagaal dhicine dastuurkan waraaqaha ku qoran hoosa loo dayoe dastuurkan waraaqaha ku qoran hoosa loo dayoe shacabkani intuu dalay buu difqaba weliye dunidii intay naga tagtaan weli dambaynaye tanaystiyo shisheeyaanu nahay dul rabaayadahe daqarkii bogson waayay baad weli damqaysaane dastuurkan waraaqaha ku qoran hoosa loo dayoe dastuurkan waraaqaha ku qoran hoosa loo dayoe waan diidnay daal iyo qax kale damac kaasirowe waan diidnay dhiig daadintii damac kaasirowe waan diidnay fowdiyo darxumo damac kaasirowe dastuurkan waraaqaha ku qoran hoosa loo dayoe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan oday ahaan u soo jeedinayaa oday Soomaaliyeed ahaan dalkan waa qori isu dhiib 20 sanadood ayuu qori isu dhiib ahaa fowdadii ka bacdi maantana in la ogolaado miiskaasi wax lagu qaybsado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hasha doobigoo loo culay wadar ku deeqdaay hilbaheeda kuwa doonayaan uga digaynaa gugooda ay daadkoo socdaa dalag la beertaaye abuurkeenna kuwa duban rabaan uga digaynaa dalkoo madax bannaan baan rabnaa dawlad xoog badani dibindaabyo kuwa doonayaan uga digaynaa daljir iyo wadani diiran baa lagu difaacdaayey damaacigu shisheeyuhu wataan uga digaynaa deganaasho guud baa nafluhu dana ku gaarayay midka weli dagaal doonayaan uga digaynaa midka weli dagaal doonaya yaan uga digaynaa dhaliil abwaan wuxuu dhanka xumaasa loo dhigaa dhaliil abwaan wax waa dhistaa dhanka xumaasee loo dhigaa dhaliil abwaan wax waa dhistaa dhanka xumaasee loo dhigaa dhaliil abwaan wax waa dhistaa amuurkaa qarsoonaan rabbi uu nagu imaanaynin adaa ewela oo aakhiroon aray ku dhaafaynin axadna kulama maamulo qalqiga idil ahaantiisa adigaana uumay oo in badan noo ixsaan falay iftiinkana na keeno rabbi uu nagu ammaansaayay idimadan ku soconiyo gacmaha lagu adeegaayo indhahoo biyo adigabaa aragtiduu yeelay islaan noogu baaqay oo taqwada nagu iraadeeyey ibliisaasa qaar duursado waa ambanayaane ikhlaas noogu deeq adigabaan kuwa atoonnahay war is aamina marxaladanu waa tii u adadkeeda aamina inaan dhaxal awow wada ilaashayno inta kuma idlay karo wuxuu uurku tabayaa asraar ba asraar furtoon la ilimeeyay waxba yaanan oomina tixdan waan afjarayaa in walba ilaahay ka yaab ilki waa madal assalaamu calaykum siyaasadahan midabaynaya ee la isku mari waayay kursiga la wada muhanaya la isku mandhaafay
doorashadan mugeed buuxsamay aan joogno milaygeeda haddii aanay dadkii nagu matalay madal ku xaajoonin oon la isla meel dhigin wixii noo mihiib galaya oon loo miyirin hawshu waa sii murgacataaye muwaafaqada ayaan laga fogaan la isku maxaabaysto waana salaamaya sharaf lahaa duuga dhaxal reeba marka hore daabaan iri murtidu waa dawiya qayre dadka inaan u sheegnaan jeclayn daacad warigeena wax kasto u daran baan niraadaayo waa cudure maskaxdooda dhaxalaysataan dib u sifaynaaye waxa dilaya magaceena baan kala dardaarmaa dalka iyo dadkan waxaan iraaxo ugu daafacay duulkii nabadda diido dafira darag ma yeeshaan darxumiya dhibaatay mutaandaayin abadkoode dagaalka iyo colaadaan iraayaan dib loo arag danaystiya waxaa jira kuwaan daahirayn abade dugaag iyo libaax iyo ka daran bahal dad qaata damac kama gaboobaan iyo hunguri ee badooriguye dibnaha wax lagu jiiday iyo dheef ayaa diliye isku diraha kala diraha iyo daalinka iyo tuuga duminaya qarannimada baan diida ku iraa u degdega samaantaan ilaah waa dawiya qayr ilaahay dartiis baan midnimo ugu ducaynaaye inaan dawlad laga maarmin baan dhab u dareensiinay isku duubni muujiya dad iyo waa wax noodane allahayow adoomada adigu umataanahay allahayow abaara dhiciyo masaraad weyn allahayow irmaankii la waa ogobka xoolaad allahayow dhallaankii ilmuhu waa allow saale allahayow intaan soo maray iyo afood naga hayso allahayow irsaaq waasoo adigu noo keento allahayow intii eed gasho adiga kuu laabta allahayow albaabada san iyo ila xareed jifto allahayow islaamku midiyo aamin lagu seexdo arligoo xoroobiyi rabbow ehelka soomaali alalaaska guushaan rabbow abid sugaynaaye adiga awoodeeda leh iminka aad keento daraad iyo ilaa shalay dalku cagaha muu dhigan loo diid inuu helo xalkii uu ku degi lahaa ma og tahay dadkaygoo wax liqa dhulka u daran isagana daruuruhu kolka ay dul hooraan hamba weeye daadku durdurrada marsiiyee miyaan dadkaygow laga baran duruus weli waayaha dawaafka waxaan uga dan leeyahay isu daran waxaan nahay aan garan danteedii dibidii ha noqonina walibaaxu kala dilay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh shacabka Soomaaliyeed isagoo la hadlayay madaxda mucaaradba wuxuu yiri beed baanu lahay laba baarqabo isku soo baxsaday bartankooda yaal marka dalka iyo dadkuba turaalay u baahan yihiin waxaan inta ku dari lahaa adduunyada macaan iyo qaraar baad ku mudataa waqtigii madow iyo midkaad farax la muudsooto midba waa marxalad gooniyo maalmaheeda leh waa muraayad taariikhdu iyo lagama maarmaan haddii macaanka khayr leeyahay laga macaashayo Soomaalidu midnimada ilahayd may murgacateen madaxweynayaal iyo iyadoo minister loo doortay nimankii maroorsaday talada maamulkana xoogay waxay dhalisay maandhaaf kolkay madaxadeeyeen awood la ismaquunshay iyo xoog la isku muruq sheegto mariyo dhiig la moodko batiya ma la kala qaado masiibada mushaqadii dhacdiyo wixii la soo muuday ee uu gacalku kala maatay ee la ismartii waayay waayihina soo maray haddaan milcsan noo eegno qalbigan ka murugoonayna mahadhadeedii tubtiyo inoo muuqatoon maanta baarkayno mar labaad inaan raacna tii waa martabad seege maskaxda iyo garaadkiyo miyaan maanku talinaynin oo aan miyirku nagu soo degayn yaabiyay